qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xeryaha qaxoontiga ee Dhagaxley ayaa ka cawday shaqo la'aan baahsan oo ka jirta xeryahaasi. Faahfaahinta warkaasi waxay noo soo diray Mukhtaar Xasan Ibraahim. dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa waxay ka cawadeen in ay shaqo la'aan ka hayso dhinacyada kala duwan ayadoo arrinkan ay ku sheegeen in ay sabab u tahay dib u laabashada qaxootiga Soomaaliya. Mar aan booqday xeryaha ayaa waxaan kula soo kulmay dhalinyaradan ayagoo iiga warbixiyay dareenkooda. Allah Cabdi Yuusuf waxaan ku nool xerada F2 anaga waxaan kamid ahay dadka ku nool F2 waxaan haystaa aqabadan baan markii aad Soomaaliya repatriation ana sahnad kula hadlay duwan gashan yahay marka hadda shaqan ma haysan waxaan haysan ma jirto dib ayaan ku qabnaa dib u celinta Soomaaliya waxaan rabnaa inaan joogno qaxootiga aan wax ku baranayno shaqo aan ku helno oo horumarino nolosheena xaaladuna aad ay u xuntahay sababtoo meeshan waxa laga dhigay malaha wax hadda anaga ku noolnahay oo nolol maalmaha lagu haystaa dadka xoogooda isticmaalaan ay ku soo shaqeystaan wax kale hadda وحصل ليبان دهكر مجرته وحمرديه اللي وحبانين. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد الله محمد سالم محمد وكون الحرد وقعدتي دقالي وعن قال الله دايرته حرد دقالي وشقاور أنا سنين أنا ولا ورت مجرته بارم قدام أنا نسكت جنا وحيل هذا أنا مجرته يوانا سير وحق عمان دايرتي أنا شقاور ويشو مدة كلا وحنا جاي من جالي وحنا كوكب نملو حرد قعدتي دقالي معي ما نكون سقال بقى سقاشين إلا هذا وحنا ولا قبت مقرنا مقعد وفارح على ساق kamid ahay dhalinyarada ku nool xarada Dhagaxley waxa kamid ah dhalinyarada xarada dhibaatada ku haysto shaqo la'aan baahsan hadii kii shaqaale boqolkiiba 90 ma helaan shaqo 10 heshayna kuma filno kuma shaqada meesha u aadaan waxa way lacag wax dhan 7,000 kuma gadan karaan in masalaadka kala hayo xaafad ka quraaceen shaqo laga sugaay quraac u baahan yahay qado u baahan yahay reerkii uu ka soo tagay wuxuu u baahan yahay wax uu ku dibaro asaga naftiisa mustaqbal u baahan yahay uu dib u dhigto marka shaqo la'aan baahsan ka jirto dhalinyarada kala biraanada iska socota waxay qabanaysaa malahan marka dhalinyarada meesha halis weyn ay ku tahay bulshada aan ku soo dhawahay TV-ga caalamiga waa bari TV aad baan u mahadnaqayaa maanta booqashada ugu maaday xerada qaxootiga Dhagaxley magacii waa Shinacag Madage waxaan ku noolahay xerada qaxootiga waxaan kamid ahay dhalinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada qaxootiga Dhagaxley hadda dareenka ka muujiyo shaqo la'aantaas dhalinyartaasi waxa jawala afar ma jiro taasoo macnaha dhalinta qaar kood shaqo la'aan baasan taagan tahay dhalinta sanad wadanka kala dugsiga sare ee dalka xeryaha qaxootiga ka kala jabay ayaa waxa la soo wajibay afar ban taasoo ku muujinayaan xiritaanka xeryaha qaxootiga si kasta marka iska ahaato dhalinta ku dhaqan xeryahaasi ayaa waxa ay kana si weyn macnaha u walacsan xiritaanka xeryaha qaxootiga si kastaba ahaatee dhalinyaradan ayaa waxay baaq u direen hay'adaha samafalka ee xeryaha qaxootiga Dadaab in ay isbedel u sameeyaan. Mukhtaar Xasan Ibraahim waa Bari TV xeryaha qaxootiga Dadaab ee waqooyi bari.